duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriso ayaa xafiiskiisa ku qaabilay duqa magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug xirsi yuusuf bare. ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta iyo iskaashiga ka dhexeeya labada maamul ee gaalkacyo iyo muqdisho. intaasi kadib ayaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka waxay duqa magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug ku wareejiyeen 2 gaadiid oo basaska dhaadheer ah, kaas oo loogu talagalay in loogu adeego bulshada ku nool magaalada gaalkacyo. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa ka warbixiyay kulanka uu duqa magaalada muqdisho la qaatay duqa magaalada gaalkacyo iyo gaadiidkii maanta la wareejiyay. waxaa gudoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenadeena aan maanta halka kula kulannay duqa magaalada gaalkacyo si maamulka galmudug si aan uga wada hadalno xiriirka labada magaalo ee gaalkacyo iyo muqdisho iyo guud ahaan galmudugba oo maanta asaga nagala joogay. waxaa sharaf weyn u ah gobolka banaadir inaan magaalada gaalkacyo wixii annaga ka caasimad ahaan aan iska kaashan karno inaan ka wada shaqeyno. sida hadda sawirkeena ka muuqda gadaasheena waxaa yaala gaadiid aan ugu talagalnay inaan wixii hadda awooddeena ah oo maanta aan uga qayb qaadan karno horumarka ama isku socodka magaalada iyo bulshada gaalkacyo ku nool inay u isticmaalaan adeegyada kala duwan ee maamulka dowladda hoose uu qaban doono. mudane gudoomiye waxaan kugu talagalnay gaadiidkan, adigana waxaan rajeynayaa inaad naga gaarsiin doontid dadka magaalada gaalkacyo degan oo runtii aan dareemayno inay naga mudan yihiin wax intaan ka badan wixii aan awoodno oo tabarteena ah. gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir aadan sheekh cali fiido ayaa dhankiisa tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uu diyaar u yahay xoojinta iyo wada shaqeynta kala dhexeysa maamulada dalka. waxaad u jeedaan maanta munaasabadda meeshaan aan u taaganahay duqa magaalada gaalkacyo iyo gobolka banaadir duqa magaalada iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxay wada yeesheen xiriirkaasoo dowladaha hoose inay wada shaqeeyaan ah. marka sidaa daraaddeed xiriirkaas waxaa ka dhashay inaan gaadiid ku wareejino oo sida idiin muuqata dowladda hoose ay leedahay. dowladda hoose ee gaalkacyo ee duqeedu uu joogo ayaan maanta meeshaan ku wareejinaynaa si bulshada labada gobol ku wada nool ay xiriirkooda xoog u yeesho. duqa magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug mudane xirsi yuusuf bare ayaa uga mahadceliyay maamulka gobolka banaadir gaadiidkii maanta lagu wareejiyey magaalada gaalkacyo, isagoo dhankiisa tilmaamay in maamulka magaalada gaalkacyo uu diyaar u yahay taageerada iyo garab istaaga maamulka gobolka banaadir. maamulka gobolka banaadir ayaa wuxuu nagu wareejiyey 2 baabuur oo gadaalkeena taalla. kulan aan wada yeelanay gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa baa arintaas ka soo baxday. runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa maamulka gobolka banaadir sida wanaagsan oo ay noo sharfeen. nuur saciid taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada muqdisho.